radio وارنتا مقالة كسمايان كسوغان هاي عاصمة دولة goboleedka Jubbaland kumeel gaarka ah sidaad ogtahay maashu hadda warkeeda waad ka wada dhigsantiin in badan oo in kamida waa meel goodoon ah oo aad loo go'doomiyay lagu tilmaamay inay la mid tahay in la geliyay qaanada Mareykanka uu kaga jiro North Korea uu ugu jiro kaleeto in Soomaaliya laga geliyay oo aan garan karin lagu qiyaasay inaan ahayn dadka dad aan xuquuq ku lahayn xukuumadda federaalka ah aniga hadda aan kula hadlayo baarlamaankii 2020 in la furay ahayd inaan xamar xaadir ku ahaadaan ayay ahayd aniga xilwaana kale oo badan halkaas aan ku go'doonsanahay xaaladaha caafimaad dhibaatooyinka dadkii xanuunsanaa ama dhaawac ahaa ama hawlaha caafimaad oo isbitaalada oo dhan aad ay u saameysay dhimasho iyo dhaawac oo waxba laga qaban karin oo dandaraysan oo isbitaalada qaarkood hadda ay soo bandhigeen oo aad aragteen aan u malaynayo ayaa jira wax ka danqanaya ma jirto xukuumadda federaalka nasiib darrada asii haysto dadka hadana waxay tahay inayba inkirtay in ayadii ay cuna qabataysay oo nin Canada ka soo hadlay shir jaraa'id meel ku qabtay oo sheegaya in aan cuna qabatayn la saarin dadkan oo la yiri kaliya 24 saac ka hor la soo codsado oo u dhigma hadal qaab ciidan dagaal ku jira jiida hore joogo oo kale in arrimo laga wareysanayo amniga ku saleysan oo kale in uu jawaabay ninkan una qalmin dadka Soomaaliyeed in sidaas loogu jeeso waa gartay laakiin xildhibaane soo ma moodid in aad ka badbadinaysaan maxaa yeelay dawladdu hadda wax go'doon ah ama ay go'doomisay ama cunaqabateen ay saartay Kismaayo ma jirto oo kaliya waxay tiri duulimaad tooskii ayaa laga weeciyay oo diyaaradda Kenya iyo Soomaaliya in Muqdisho ay soo maraan kaliya soo sidaas ma ahayn maya absolutely ma ahan waxaad ogtahay horta laftigaaga in Sheekh Axmed diyaarad uu soo raacay rabay alaabtiisa markii la miisaamay maxaa ugu dambeeyay kan hadda la siiyay diyaaradii soo raacay alaabtiisa la miisaamay oo la gudbiyay tag number lagu dhajiyay boarding passidii la siiyay in horta la celiyay diyaaradii la kansalay ayaad ogtahay waana la socotaa airportkaas maalintaas waxay ka dhacay iyadoo uu madaxweynihii qaranka uu ka baxaya qaybta VIP-da madaxweyne Sheekh Axmed in qaybta kale lagu xayiray oo lagu go'doomiyay oo aan ognahay waa nasiib darro waxa ka sii xun ka sii fool xun intaas oo dhibaato oo la geysanayo hadana in la inkiro waa foolxumo kale haddaan ku aado cadeymaha nimankan in ay qaab isticmaalayaan al-shabaabka taktiikooda kale isticmaalayaan al-shabaabka dadka gobolka Banaadir iyo Soomaalida oo dhan waxay ku hayaan lacag baaday ka qaadaan canshuuray ka qaadaan talaabooyin ka qaadaan waxayna dadka ku amraan inaanay soo xigan karin qofka amarkaasi inaan la soo xigan karin inaan la sheegi karin hadda xukuumadda federaalka ah iyo dadka qaabka ay u shaqeynayaan qaab al-shabaab ah dawladnimada ka fog fariimay dadka u dirayaan shirkadaha oo afka ay uga sheegayaan fariimahaasina waxay leeyihiin qoraal idin ma siinin afka ay kaga sheegnay amarkana waa qabtay waxa ugu dambeeyay xafiiska guddoonka ururka loo yaqaano AOC xafiiskooda ayay isku yeeran 22kii ayagoo fariin u sheegay afka uga sheegay oo yiri laga bilaabo 23 bisha 9 ilaa iyo 26 bisha 9 diyaarad aadi karta gabi ahaanba Kismaayo ma jirto afka uga sheegeen xafiiskii wuxuu diray fariintii oo qoraal ah uu diray uu leeyahay mudanayaal waxaa hadda maanta mar kale naga soo gaaray maamulka hay'adda duulista hawada ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo SCAA in gabi ahaanba la xakiyay duulimaadyadii diyaaraduhu ku aadi jireen magaalada Kismaayo laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 23 ilaa 26 bishan hadda aynu ku jirno haddaba mudanayaal maamulka hay'addu wuxuu noo xaqiijiyay in uusan jirin wax duulimaad ah oo tagaya Kismaayo in inta lagu guda jiro
munaasabada xanibaadu saaran tahay wixii ka dambeeyana dib ayaa loo fasixi doonaa duulimaadyadii ay diyaaraduhu ku tegi lahaayeen Kismaayo sidaasi ha loola socdo fariintan ayuu diray guddigii loo sheegay afka lagala hadlay oo loo diiday in waraaq ahaan loo qoro fariinta kale hore waxay ka soo direen systemkay ka soo direen si aanay raadraac looga samayn screenshot laga qaaday waa la socodkii si fariinta kaleeto waxay u qorneed English ay ku qorneed fariinta kale ayna u qoran tahay aad aragtay screenshot yar oo meel walba la soo dhigay oo software computer virtual-ka ah gudaha systemka computer-ka laga screenshot garay marka waxay u eg tahay in ay diidan yihiin in lagu soo oogo dhibaatooyinka ay geysteen cadeymahooda in lagu soo oogo waana taktiga al-shabaab ay u shaqeyso al-shabaab raad laga raaca ma laha dadkana lacagay ka qaadaa baaday ka qaadaa dowladnimadana lagama sugayn in taktiga al-shabaab ay u shaqeyso mana ahan war aan ka badbadinayno waa gartay marka xildhibaane hadda xayiraadaas maxaa la taaban karaa oo saameyn ah oo ka dhalatay runtii hadda keliya lasoo feelgareeyay oo dhinaca caafimaadka ah oo naf leh oo hadda dhaawac leh isbitaalka Kismaayo waad aragtay hal maalinaa la tegay keliya halka maalin oo la tegay dadka yaala isbitaalka qaarkood ay ICU ku jiraan maamo lugta boloshay oo halkan waxba looga qaban waayay dadka maalin walba oo halkan waxba looga qaban karin oo referralku loogu talagalay hay-adihii keeni jiray dawooyinka isbitaalkan Kismaayo week kasta hal mar keeni jiray ana imaan jirin diyaaradahoodii oo saacadaha soo socdo haddii sidaas ay kusii sugnaadaan isbitaalka Kismaayo keliya dhimashooyin badan ay ka dhici doonto nasiib darada hadana jirta ay tahay xukuumadda inay inkisan tahay inay waxba jiraanba oo business as usual wax la yiraahdo ay u hadlayso wax dhibaato ay jira malaha wax la cunqabatay malaha diyaaradihii baa shaqadii ka dadku iska dhaafay luuqada noocaas inay ku hadlayaan waa maahan wax dadka Soomaaliyeed waa ciqaab wadareedka noocaana ay mutaysteen ma jirto siyaasadda hadday isku hayaan ayagii Axmed Madow hadday siyaasadda isku hayaan siyaasadda waxay leedahay channel loo maro ciqaab wadareed malaha